waxaan rabaa dadweynaha Habasweyne inaan wax xaqiijiyo in dhibaatada koronto la'aanta ay mar dhow noqonayso taariikh 638 milyan oo maalgashi ah yaa la geliyay xarunta koronto soo saaridda ee Habasweyne waa la dhammaystiray in yar oo ku saabsan kontraktaga in lacagtiisa la siiyaa u dhinayd lacagtii iyada ay dawladda way soo siidaysay mar dhow kontraktarka waa la siinaya lacagtiisa bisha January dhexdeedana waa daahfuri doonaa xaruntaas 2.5 megawatts of electricity bay soo saaraysaa mar dambana la idin kama tagi doona haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala waxaa kaloo ku faraxsanahay in laynkii lag boqol uu dhammaystirmay oo waxa uu sugaya ay tahay oo kaliya xaruntaas Habasweyne in la furo oo kaliya kadibna dadweynaha reer boqol iyo tolooyinka u dhaxeeya Habasweyne lag boqol iyaguna ay heli doonaan waxaan ku faraxsanahay in Karu ay koronto mashruuca loo bilaabayo bishan koobaad oo Karu ay koronto heli doonto looga qaadayo Habasweyne insha Allah taala isla markaa meesha la yiraahdo Guutija laynka lag boqol ee marayo la approve gareeyay oo lacagtii la soo daayay layn looga jiidi lahaa madax libaax iyo cali dhuumaal goobweyn ilaa Ayrib insha Allah taala barnaamijkaasna January uu bilaabanaya waxaan kaloo ognahay xarumo kala oo kuwa mini gridka ah ee mataqaanaa dieselka iyo solarga ah in laga dhisayo hadda Dhadajabula oo shaqadeeda bilaabatay Sabuli iyo Mary iyo Darful Burdheer Diif Ibrahim Ure intaas iyaguna mataqaanaa la dhisayo maalgashiga korontada kaliya ee dawladda dhexe ay gelinayso Wajeer South qiimihiisu wuxuu kor u dhaafayaa 2 bilyan iyo 300 milyan oo shilin Kenya miyadan ku faraxsanayn Wajeer South arinta iyada meena farax gelinayn insha Allah waxa la wixii kab ah oo aan ku kabi karna dadaalka countiga xagga biyaha iyadana waan ku kabaynaa lag boqol ceel kala loo duriyay hadda oo hay'ad ay noo duriyaysa ilaa 400 mitir baa la durayaa waxaan filaynaa insha Allah taala biyo macaan inaan dadweynaha lag boqol iyo tuulooyinka kale Ayrib iyo Aldoomaal iyo Goobweyn iyo kuwa kale ku dhow aan iyaguna gaarsiino insha Allah biyagelintu waa tiro badan tahay waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo World Bank iyo dawladda Kenya iyo county government projectyada ka socda Tesoriyay ama Hare iyo Dhadajabula oo dhabtii ummadda wax weyn u tari doono aad iyo aad bay u mahadsan yihiin